Wadadan waa midda ugu halista badan ee qof bani aadam ah uu ku safro. Waa jidka isku xira magaalooyinka Abbottabad ee Pakistan ilaa Kashgar oo ah Shiinaha. Wado qardajeex ah oo isku marta dhul buuraley ah, dhagxaan iyo dariiqa ugu halista badan ayaan ku safri doonaa, adiguna ha ka harin safarkeena. Wadadan waxaa lagu magacaabaa Karakoram. Halkan ayuu ka bilaaban doonaa safarka jidka ugu halista badan dunida. Bilowga safarkeena, durbadiiba waxaa noo muuqanaya dhagaxyo ka soo dhacaya buurta kore. Waa khatarta ugu weyn ee wadadan. Waxay u muuqataa inaan maanta lagu safri karin, hase ahaatee waxaan ku marnay si dirqi ah oo aysan damaanad jirin. Waxyar marka aan soconnay, waxaan la kulannay baabuur jidka dhinaciisa yaala oo burbursan. Waxaa sidan u burburiyay dhagxaanta kor ka soo dhacaya ee halista badan. Sidaasi oo ay tahay waxaan sii wadnay safarkeena. Marka aad wadadan ku socoto, waxa aad helaysaa dardaaran badan, geeriduna waa mid kuu dhow. Gaarigaaga kuma wadi kartid xawaare sare, maxaa yeelay waxa aad ku socotaa buur dusheeda oo aad daqiiqad kasta ka dhici kartid. Haddii dhinacaaga bidix ay ka jirto buur dhagax ah oo halisteeda leh, dhinacaaga midig waxaa ahaaday dhulka oo kuu jira masaafo aad u fog, oo haddii aad ka dhacdo wadada aadan naf kula gaarin dhulka. Wadadan oo isku xirta Pakistan ilaa Shiinaha waxay ka gudubtaa ama ay dhex martaa buuraha waaweyn ee Nanga Parbat, Himalaya iyo Hindu Kush oo dhulka u jira ku dhawaad 5,000 oo mitir. Waa qaar ka mid ah buuraha ugu waaweyn dunida, sida buurta Nanga Parbat oo ah buurta sagaalaad ee dunida ugu dhererka badan, waxaana loo yaqaan marka halkan aad joogto buurtii dhimashada. Arrinta naxdinta leh, intii aan ku soconay jidkan dhex mara buuraha, waxaan la kulannay dhacdo kale oo argagax leh. Gaarigaas idin muuqda ayaa ka dhacay wadada qarkeeda. Dadkii saarnaa dhammaanna halkaasi ayay ku geeriyoodeen. Waxay u kaceen dadkii ku safrayay wadada si ay u soo badbaadiyaan haddii dhaawac uu jiro, meydkuna dugaagta aysan u cunin. Waxaan ku sii jirnaa safarkeena, laakiin arrinta caqabadda ah waxay tahay wadadu aad ayay cariiri u tahay, mana jirto meel ay gawaarida isku dhaafi karaan. Waxa aan la kulmaynaa gaarigii saddexaad oo ku burburay wadadan intii aan wadnay safarkan halistiisa leh. Mid ka mid ah dadkii aan safarka ku wada jirnay ayaa xanuunsaday cabsi darteed, laakiin ma joogno meel aan ka noqon karno, maxaa yeelay iyada oo hore iyo gadaalba aysan kala rooneen, haddana jidkuwa ma laha meel lagu kala fireeyo. Intii aan soconnay waxaa wadada nagu helay roob, bal qiyaas jidkii aad aragtay oo uu roob kugu helay. Dabcan, khatartu aad ayay uga sii badan tahay intii hore. Dhismaha wadadan waxa ay muujinaysaa awoodda aadanaha uu siiyey Alle. Marka aad eegto sida loo dhisay, waa wax la yaab leh oo aad u adag in la hirgeliyo jid sidan oo kale ah. 800 oo qof ayaa u dhintay dhismaha jidkan, kuwaasi oo ka mid ahaa shaqaalihii wadadan loo diray si ay u dhisaan. Halista buuraleydan, dhagaxyada waaweyn ee ka soo dhaca oogada, iyo masaafada dheer ee uu dhulku u jiro jidkan ayaa sababtay in ku dhawaad 1,000 qof ay ku dhintaan dhismaha wadadan. 12 sano ayuu socday dhismaha dariiqan ee Karakoram ee isku xira Pakistan ilaa Shiinaha. Jidkan oo ka soo bilowda magaalada Abbottabad oo ah dhinaca Pakistan ilaa Kashgar oo ah Shiinaha, waxa uu malaayiin qof u sahlay inay isaga kala gooshaan xuduudkan halista badan. Laakiin arrinta ugu daran waxay tahay waxaa jira meelo aanan baabuurtu marin oo jidkan ku yaala. Sidaasi darteed, waxaad ku qasban tahay inaad ku lugayso ama aad adeegsato faraska oo ah gaadiidka beddelkiisa. Marka aad joogto halkan, waxa aad ka saraysaa daruuraha, waana tan cabsida badan ee dadka welwelka ku sii abuurta. Ma jeclaan lahayd inaad wadadan ku safarto, bal adigu aragtidaada hoos nagula wadaag. Muuqaalkana like saar oo sii share gare.